waxaan ku suganahay tuulo ka mid ah tuulooyinka hoostaga Garissa County waxaan la kulmay hooyo Soomaaliyeed oo gabar yar oo ayada ay dhashay qissa aad u xanuun badan oo cajiib ah qabsatay gabadhan waxa lagu magacaabaa Iqro maqasina jirtaa way 10 sano sheekadan waxaad kaga bogan doontaan su'aalaha aan hooyadan weydiin doono hooyo magacaada adoo ku bilaabayso magaca Ceebla Cadow hooyo magaaladan magaceed magaaladan dal helal dhaha waxay hoos tagtaa Madooga Shimiya macallimiin bay hoos tagtaa ha hooyo meeqa canug baad dhashay 10 canug Iqro waad meeqa jir 10 jir miya ha ma sha Allah Iqra qisa qabsata sa iga sheekaysaday aad u xanuun badan bal waxa wax yar nooga sheegtaa ayaantii Iqra arinta qabsata say wax u dhaceen maxay raaceen yaa la socday bal hay wiil baa la socday labadooda ahaayeen duhurka markay joogaan baa ariga ka kala go'ay wiilkii baa arigaasaan soo gadin ariga intuu ku maqnaa waa dabeel dhaxdooda soo gashay dabeel duufaan oo siiga wadato sax marka ariga kalena wuu waaye kii ayada ay la jirtana wuu waaye sax bacdil maqrib buu imaaday wiilkii ariga kala goosanka ahaana maqribtaas uu imaaday marka ayadi waa la waaye hadii la waaye meesha waxa laga birmada oo rax soo jeed casar ah sida undidayna ariga raadkiisa noo baxay sheebahan qoryaalo dhan buu gooyay meel la dhaho waa mid Jibriil dusheeda shisheema ku joogo oo 8 saac aan joogno oo habeenimo baa libaax gale libaax waa raadkiisa yar qaaday uu ka qabsaday ridii way ku soo noqotay kirkir bay tiri waana 10 jir gabadhi libaax neefka la qabsanaysa markay tiro ayadii ku booday ayadii ku soo booday ridii buu geed isku dhaxriday marka ridii buu qabsaday laba libaax bay ahaayeen libaaxi kalena rika loo qabsaday marka labadii bahal laba dhaxdooda ay soo marto geedka xagga ooga bax way garan waysay labadii libaax laba dhaxdooda soo martay ariga oo dhurwaasi didinay ay dabada ka gaartay ruwaagi bas markuu ariga qabsado kirbeyde ayadana way iska dhax ordisay wada 57 neef buu dilay 57 neef dhurwaagi iyo libaaxi iyo bahaladii ay dileen intaana way dhax ordaysay marka dambe ridi u dambeysay dhagtay qabsatay dhurwaagi sax dhagta markay qabsataa tu kala ku soo gashay kalena boodidu qabsaday sax kirkir bay tirwaa qaylisay rihi eedaankooda iyo qaylideeda baara ku soo birmado magaaladii marka ku dhawaatay nasiib wanaag tuulada waxay ku dhowdaa waayama Jibriil korkeeda shishay roobna ma daa xilliga waana habeen waana mugdi la jooga 8 saac oo habeenimo صح هي marka kabta jiifka waa Jibriil baa kabta kaga orday kabta buu ka soo waday 3 riyaad oo dhaawac 2 riyaad oo dhaawac ay ayadi Iqraan weydiin eegadan ahaye maxaad kala ku darrtay waxaan ku darrabay halka markaan ugu tagnay ayadi ilaa ay ka gaaraysay 6 saac oo 7 saac oo dharaarnimo maalinkii dambe hadal waa laga waayay way soo garaysay yaani way si kale maskaxda noqotay hadii ilmo yar oo 10 sano jiro oo intaas oo bahal intaas oo saacado dhex socday waa dib Iqro maxaa xasuusta bahalka xasuusta noocu ah ma xasuusan kartaa haye ma arkaysa bidaantiisa mas guuxiisa ma maqlaysa waa arkaysa haye marka ma si fiican u hadal maxaad ka xasuusataa bal wax nooga sheeg sheekada انت u socota marka adina cid u socotay ma ismoodaysa mas ina dhuntan ka ogaatay haye cidina u socota moodaysa haye adii iskuul wali marka iskuulka dhigato xadada waa iskuul iniga iska bixin dawladda u diiwaan gashanay tan iqriya waxa ka yartay iqramiya ما شاء الله gabadhan gabar geesiyad waaye insha Allah hadii wixii wax u qaban karana waan gaarsiinayna ayadana niyada u daj hadda maxaa xanuunad ku aragtay markii inta arintan dhacday wadnaha ka xanuunsanta wadnaha wax saa igu taagan bay laba maalintay joogto madaxay wadnaha laga qaban marka maalinkii waxa arinta ay dhacday kadib baa waxa ku aragtay واي أدب أمها سنتهاي إن شاء الله هنا قفك بنادين هذه أرنتاس بنادين وحوس قبل قادم وان جالسين ندوينا إن شاء الله فيسبوك بيج أبوان عبد الرزاق بحي thank you very much for the watch